ugu yaraan hal qof ayaa ku dhaawacmay qarax bambaano oo xalay ka dhacay agagaarka garoonka diyaaradaha ee ciidamada cirka Kenya ee Moi Air Force ee xaafadda Islii. qaraxan ayaa waxa uu si lama filaan ugu dhacay wadada horumarta garoonka diyaaradaha ciidamada cirka ee isku xirta xaafadda Islii iyo waliba xaafadda Section 3 ee isla degmada Kamukunji. saraakiil ka tirsan booliiska deegaanka uu qaraxa ka dhacay ayaa qeexay in hal qof uu ku dhaawacmay qaraxa, iyadoona warar soo baxay ay sheegayaan in ciidamada ammaanku ay gacanta ku dhigeen qof loo malaynayo inuu qaraxa ka dambeeyay, kaas oo waliba uu dhaawac ka soo gaaray qaraxa, iyadoona xilligan su'aalo la xiriira qaraxa la weydiinayo. saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in wali ay wadaan baaritaano ku aadan qaabka uu dhacay qaraxa iyo waliba baadigoobka dhammaan dadka la xiriirinayo inay ku lug leeyihiin qaraxa. And what has happened is that the person we are suspecting, but we are coming with a conclusive report after we do the investigation, that seeing the body, how it has been blown off, maybe he is the one who was carrying the explosion. And as you can see, the bomb experts, they are on the ground there. We want to tell you what kind of an explosion was it. Was it an ID or whichever? So we shall be informing you the moment we are through with the scene. ma jirto saameyn gooni ah oo qaraxii xalay uu ku yeeshay nolosha iyo ganacsiga Soomaalida ku dhaqan Nairobi, gaar ahaan xaafadda Islii oo ah xarun muhiim u ah Soomaalida Kenya. horaantii bishan ayaa ahayd markii xadka Soomaaliya iyo waliba Kenya ay wadaagaan deegaan ku dhow qarax uu ka dhacay, kaas oo hal askari uu ku dhaawacmay, iyadoona 14 qof oo kale oo rayid lagu sheegay yana ay ku dhaawacmeen. sidoo kale ragga lagu sheegay taageerayaal xarakada Al-Shabaab ayaa qaraxyo kala duwan bilihii ugu dambeeyay waxa ay ka geysanayeen magaalada Nairobi caasimadda dalkan Kenya, iyadoona sidoo kale ciidamada ammaanka dalka Kenya ay sheegeen inay si laba jibaari doonaan sugidda ammaanka dalkooda wixii ka dambeeyay markii ay gudaha u galeen dalka Soomaaliya. Maxamed Cusmaan Xabiib, Royal TV, Nairobi.